sidee loogu sheegaa xaaskaaga inaad jeceshahay? culummada guurka ku takhasusa waxay leeyihiin markay xaaska calaacalayso waxay si dadban ku dhahaysaa itusi jaceylka ii qabto. nabigeennana allahuma salli wasallam calayh caaisha ayaa weydiisay, yaa rasuulallaah, jaceylka ii qabto siduu yahay? markaasuu nebiga allahuma salli wasallam calayh wuxuu yidhi waa sida xarig todcan oo kale oo xooggan. marka mar walbo caaisha waxay weydiinaysaa xariggii ka waran ma xooggan yahay? nebigana wuxuu leeyahay sidii hore maahan, si ka daran ayuu u xooggan yahay. marka caaishana waa farxaysay. hababka loogu sheego jaceylka waxaa loo qeybiyaa 5 qaybood. afkaaga oo aad ugu tiraahdo xaaskaaga inaad u sheegto sida aad rabtidba ugu sheeg. yacni nin oday ah aan maqlay xaaskiisa dhahayo markii aan wejigaaga arkaba barasetamool uma baahni, madax xanuunka dhan waa idaayaa. sidoo kale waqti tayo leh ina isiisaan, ama inta maqaayad aad tagtaan, ama inta guriga xataa meel inta fadhiisataan oo mobaylka la damiyo oo aad sheekaysataan oo aad cuntaysaan, iyo hadiyad inaad isweydaarsataan. midda saddexaad yacni nebiga wuxuu yidhi tahaadu taxaabu, isu hadiyeeya waa isjeclaanaysaane. tan afaraadna isla cayaarista ama galmada ama raaxada, taasna waxay ka mid tahay habka loo gudbiyo inaad xaaskaaga jeceshahay. sidoo kale howsha guriga oo laysla qabto, macnaa nebiga allahuma salli wasallam calayh xaasaskiisa wuu ku kaalmayn jiray howsha guriga, aadna ayaynu u jeclaysan jireen. marka adiga waxaa lagaga baahan yahay 5taas qaybood midka ay xaaskaaga aadka u jeceshahay inaad ku dhaqanto. maxaa yeelay dadku waa kala duwan yihiin, xaasasku waa kala duwan yihiin. waxaa jirtay sida nin oo xaaskiisa ay tiri weligaa waa ku jeclahay ima dhihin. ninkii intuu yaabay wuxuu yidhi waryaahe duruucdii iyo taqamkii weynaay iyo wixii oo dhan oo aan cumrada kaaga soo gaday kaas jecel maahano. marka ninkan wuxuu isticmaalay luqadii hadiyadda, ayadana waxay rabtay inuu afka u sheego uu ka dhaho waa ku jeclahay. marka ogow macnaa sida jaceylka ay xaaskaaga u fahmayso. waa walaalkiin Baazi Busuri.